Bismillahi Raxmaani Raxiim. Maanta xaggan waxaa iskugu imaaday dhammaan waxgaradka, cuqaasha, odayaasha, waalidiinta iskoolka Buubi. Waxayna iskugu imaadeen arrimo ka jiray iyo in la dhameeyo. Waxaan kusoo dhaweynayaa guddoomiye Maxamed Jaamac Nuur siduu noogu daahfuro arrinkaa. بسم الله الرحمن الرحيم وأدوهي الحمد لله رب العالمين إلهي وما تسكلي ما توحن سوني أنو بنتي وريال غرض والدين قبضه إنه الأسوي له deegaanka xalintiisii iyo khilaafaad xoolaha ma soo dhexgalay xalintiisii oo laga dawoobay la isku gacan saaray baan meeshaan isugu nimid idinka ehel waxaan la soo wadaagaynaa khilaafaadka inaan xalinay waalidiin iyo odayaal iyo waxgarad dhammahay maantay waxaan la soo wadaagaynaa oo kale waxqabadkii deegaanka eheladeeda bannaanka jidhay ay nagu gacan qabatay wixii nooga soo aaday oo anaga guddi ahaan aynu soo gudbinay inuu soo qoontaynay inay nala wadaagaan odayaasha deegaanka iyo waxgaradka oo nala fadhiyo inay soo gudbiyaan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحن سلام يا أهلك المانتيس دل يدبد مل أي شوغان غدا ولا يقلهم وحن لسعود سنينا مدشان سوي ما تكدت كلمة سوي وكقبل هويين يا ريال نقمد إنا حوجا حوجا دير كتشدي سكول كي أكان حلمنا إن شاء الله سوينا أحسن بينو لما تعرفها وحكروا إن السوق جالسي هذا الكهر أنا سقط الشم لعق صدق كنا وكوكو إن صدق كنا دكان كان بوري كريه لو كن كوكاي بسنة أيضا أول شم كنا هاي لبادي كلام يراب كلا دوغن سكال كعيه يو بوسنية فلان بدال وكل لبادي كله saddexdii ka mid ahayd waana soo dhaweynay waa la qaadanay waana u tashanay waana ku kabaynaa iskuulkii maanta laga bilaabo waxqabad baan halkaas ka dhaqaajinaynaa israac ehlow marka idinkuna waa mahadsantihiin meel ay jidhaanba waa idin salaamaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة السلام يا وعبد الناصر حسين يوسف meeshaan waxaa isugu yimid dadkii reer Buubi deegaanka u ahaa rag iyo dumarba oqaal iyo culimo durwo iyo lugooyin waxay isla qaateen khilaaf saarkii dugsiga inay khilaaf saareen waa noo fur iskuulka waa noo furmay waxaan ku xojinay dugsigii iyo waxqabadkii iskuulkii iyo waxqabadkii daliya dibadba reer Buubi dadka ehelka u ah ay wadeen waxaa naga soo gaadhay oo guddigu noo soo gudbiyey lacag 5 kun laba ka mid ah midna gaalkacyaa loo gudbiyey dhalinyaro reer Buubi oo joogta midna reer Boosaaso iyo meelo kale oo ay joogaan 3 kunna waxaan ku qaybsanay Buubi waana ku hawl jiraa waa soo si fudud bay nooga soo gudbaysaa insha allah weerarka kale oo dabadiya daaqilbana waa mahadsan yihiin si wanaagsan oo hawsha u socoto waana ka mahadcelinaynaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والسلام يا جروبك البشر الجوي ميلو الجوي أنا بقول لها مقعد عبد الظاهر sida odayaashu iga horreeyay u sheegeenba maanta waxaa la isugu yimid shir deegaanka Buubi ayaantan xoogaa caqabad yar oo naga haystay xagga iskoolka ayadiina ilaahay mahadiis waa xalinay annaga oo la kaashanay waalidiinta iyo waxgaradka deegaanka maanta ayaanu gacmaha iska qabsanay soona afjaray waxaan kaloo rabnaa inaan u sheegno jaaliyadaha dibadda lacagtii la ka sooyey oo la yiri
waa la qaybsaday oo waxay ahayd 5,000 kun sidoo odayaal sheegeen 2,000 boosaaso iyo waxaa loo qaybiyey garoowe dhalinyaradii reer gaalkacyo reer buubi oo joogay buubi waxaa loo soo qoondiyey 3,000 lacagtaas waa ka tashanay inaan qaybsano waana ku maqanahay insha allah waa soo dadaalaynaa jawaabteedana insha allah waxaana ka helayaa mar dhow jaaliyadu meel walba ay joogto bulshada buubina waxaan ugu baaqaynaa sida aan isaga xilsaaray annagu oo kaalinteeda aan u labalaabnay meel walba la joogo in loo labalaabo arrintaasna fadhiga looga kaco run ahaantii markii la fiirsho deegaanka baahiyo badan baa ka jira laakiin hadda sida aada ogsoontihiinba sida iskuulka iyo MCH-ka iyo wax la mida baa laga soo qaatay laakiin baahiyuhu waa badan yihiin intaasaan u sheegaynaa waan salaamaynaa asalaamu calaykum waraxmatullahi بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم وعليكم السلام يا أنا بقول مرة ku bilaabay Jawaar Cali Yuusuf waxaan u nahay deegaanka Buubi hooyooyinkii waxa weeye ilmaha iskuulka aan ka hadlaynaa waxaan rabnaa walaalahay oo qurbo joogta ah jaariyadaha in ay xisaabta yareeyo inoo sheegay iyagoo noo soo gudbiyaan annaguna tii aan qoondaysanay waanu qaybsanay sida ay idinku soo gudbiyeen waalidiinta iyo xuquuqda iyo aqoonta idinkana waxaan idinka rabnaa dadaal laaban insha Allah wassalaamu calaykum waraxmatullaahi Saciid Aadan Axmed baan kusoo dhaweeyay وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام خيارك قيمة القائمة شرفت لك warka hadalba waxa ma bixiyay inta hore soo maray warka inta idin sheegeen anagu waxa u baahanahay wax qabsi inaan wax qabsanaan maanta diyaar u nahay idinkuna sharaysaa nool diyaar ahayd inaad idin ka helaan rabnaa hadee wixii waxa weeye caqabadaha jiray waa dhamaadeen israac baa la qabaa la yimid waxa inuu hal dhaqaaqo waxa bartaan rabaa hadee waxa noo qaban lahayd noo qabataan sidaan shalay ka rabnay maanta ka rabnaa waana soo dhaweynaa welcome baa leeyahay waana salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh نوفل فاتحة